واسوحنimo talaada taariikhduna ay ku beegan tahay 22 bisha September sanadda 2020 kusoo dhawaada warka subaxnimo haddii ay tahay marka kugu horeysay oo aad soo booqatay channelkeena waxaa ka codsanaynaa inaad noo subscribe oo noo like garayso noo share garayso waxaan ka codsanaynaa inaad nagu soo biirto asxaabta horay subscribe u saaran waxaa idin leeyahay aad u mahadsantihiin aad iyo aad ay u mahadsantihiin sida aad macnaha aad igu dhiirigelinaysaan aad baad ugu idinkaga mahadcelinayaa asxaabta hadda dhawaan nagu soo biiraysan waxaan leeyahay idinkana soo dhawaada dhammaantiina waxaan idin leeyahay ay laabina subscribe-ka inaad noo saartaan oo aad noo macnaha na dhiirigelisaan insha Allah inagana waan idin soo wadaagi doonaa wixii markaasi macquul ah u baahantiina community-ga nagula soo wadaaga ama wixii markaasi aad ugu baahantiin YouTube dhanka YouTube haday noqoto ama haddii ay noqon lahayd dhanka application-ada insha Allah balanteenu waa subscribe inaan isku kaalmeeno cabdi qaybdiid oo xalay kulan gaar ah la qaatay qaar kamid ah beesha Sacad gaar ahaan beesha reer Hiloole ayaa ku goodiyay inaysan beesha marnaba aqbali doonin in ra'iisul wasaaraha cusub oo noqdo mid wax ka yar 5 bilood oo talada dalka hayo cabdi qaybdiid ayaa sidoo kale sheegay in ay tahay ahaana beesha lagu qasbo in cadquureed ay qaadato haddana sharafteeda meel looga dhaco cabdi qaybdiid ayaa sidoo kale u sheegay beesha reer Hiloole in uu la hadlay guddoonka baarlamaanka Muday iyo Mursal una sheegay in ay ka shaqeeyaan sidii waqti kordhin ugu yaraan 1 sano uga badnaan 2 sano ah loo siiyay ra'iisul wasaaraha cusub waad ogtiin aniga in aysan farmaajo wax wanaag ah igala dhaxeenin waxaan u arkaa nin waalan oo been badan laakiin mar haddii ilaah ka soo qaaday in uu nin beesha ah magacaabay waa inaan marnaba ogolaanin inuu noqdo nin 4 bilood ah oo waqti yar kursiga ku fadhiyay anagana aan ku karaamo beelno ayuu yiri cabdi qaybdiid oo qiiro ay ka muuqato hadalka cabdi qaybdiid ayaa ahaa mid ay ku jirto goodin iyo hanjabaad ah in aysan beesha Sacad marnaba aqbali doonin in aysan ka faa'iidin jagada loo magacaabay waxaana uu dadkii ka soo qayb galay kulankaasi ku guwaabiyay in ay bilaabaan ololo waqti kordhin looga sameeyo ra'iisul wasaaraha cusub hadalka cabdi qaybdiid ayaa ku soo beegmaya iyadoo aysan beesha caalamka soo dhaweeynin magacaabista ra'iisul wasaare Roble welina aan la horgeenin golaha baarlamaanka si ay u ansixiyaan ra'iisul wasaaraha cusub dhanka kale Fahad Yaasiin ayaa ka dhex wada beesha Sacad dadaal ah in beesha u isticmaasho awoodeeda dhaqaale iyo mid ciidan inay ku qasbaan baarlamaanka iyo beelaha habiye inay taageeraan waqti kordhin 2 sano ah oo la siiyay ra'iisul wasaaraha cusub waxaana jira qorshe uu Fahad Yaasiin ku doonayo inuu isaga horkeeno beelaha habargidir iyo waliba mudulood dhanka kale wixii ka dambeeyay markii si wada jira loo shaaciyay heshiis doorasho oo dhexmaray madaxweyne Farmaajo iyo madaxda dowlad goboleedyada waxaa Muqdisho ka bilowday kulamo siyaasadeed iyo olole xoog leh oo ay wadaan madaxda dowlad goboleedyada dalka madaxweynayaasha shanta maamul goboleed ee Soomaaliya oo weli ku sugan magaalada Muqdisho ayaa mid kasta waxa uu casuumaad gaar ah u sameeyay xildhibaanada baarlamaanka federaalka ku metela deegaanada dowlad goboleedkiisa madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa casuumay xildhibaanada ku jira labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee laga soo doortay deegaanada Jubbaland wuxuuna u jeediyay khudbad u muuqatay mid uu ku beer la xawsanayo sidoo kale madaxweynayaasha Galmudug iyo Koonfur Galbeed ayaa iyaguna midba si gaar ah u casuumay dhammaan xildhibaanada labada aqal ee laga soo doortay deegaanada ay ka arimiyaan maamuladooda madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa isagana kulan cashi sharaf ah ku casuumay dhammaan xildhibaanada dowladda dhexe ka soo gala deegaanada Puntland madaxda dowlad goboleedyada ayaa hal ujeedo kale kala xodxodashada xubnaha baarlamaanka federaalka waxayna ku adkeenayaan fariinta ah inay ansixiyaan heshiiskii dhawaan lagu kala saxiixday filla Soomaaliya ee laga gaaray hanaanka ay u dhaxaysa doorashada Soomaaliya madaxweynayaasha dowlad goboleedyada oo sida muuqatay qodobadii heshiiska madaxweyne Farmaajo uu guuleystay sidii ay wax u rabeen ayaa cabsi ka qabay in heshiiskaasi lagu fashiliyo horgeynta baarlamaanka federaalka cabsi badan ayay ka qabaan in baarlamaanku uu diiday heshiiskaasi taas ayaana ku kaliftay in ay gaargaar u shiriyaan iyaga oo ka wada dalbanaya hal qodob oo ah ansixinta heshiiskaasi shabakada sirta media oo xog ku heshay rabitaanka madaxweyne Farmaajo ee meelmarinta heshiiskaasi ayaa ogaatay in madaxweynaha uu doonaya in mar uu dhaafo culeyskan ka haysto dariiqii loo mari lahaa doorashada dalka isla markaana baarlamaanku ansixiyay heshiiskan si qodobadii heshiiskaasi loogu jeeyo doorashooyinka dalka si kastaba iyadoo ay jirtay in madaxweynaha uu doonayo in heshiiskaasi la meel mariyo ayaa haddana waxaa weli jira shaki ay qabaan madaxda maamul goboleedyada iyo is-aaminaad la'aan weli ka dhex jirta labada dhinac taas oo keentay qorshaha ay wadaan madaxda maamul goboleedyada dhanka kale saaxiibada beesha caalamka ee taageeraya Soomaaliya ayaa sheegay inay ka xumaadeen qodobadii lagu heshiiyay ee ka soo baxay shirkii madaxda dowladda federaalka iyo shanta maamul goboleed ee lagu soo gabagabay magaalada Muqdisho war saxaafadeed ay si wada jira u soo saareen ayay ku sheegeen inay ka xun yihiin nidaamka doorasho oo ay ku heshiiyeen madaxda Soomaaliya waxa ay tilmaameen nidaamka lagu heshiiyay ee doorashada dadban ay meesha ka saarayso higsigii muddada dheer la sugayay ee ahaa in Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah oo lagu soo dooranayo xubnaha baarlamaanka war saxaafadeed ay si wada jira u soo saareen wadamada la shaqeeya Soomaaliya ayaa lagu sheegay in heshiiska la gaaray u baahan yahay in laga bixiyo faahfaahin dheeraad ah 22 xubnood oo isugu jira dalal iyo ururo caalami ah ayaa ku baaqay in doorashada Soomaaliya ay noqoto mid cad oo xor ah isla markaana loo dhan yahay xubnaha beesha caalamka ayaa ku booriyay siyaasiyiinta Soomaalida in doorashada 2020 ay noqoto mid cad oo xor ah isla markaana cadaalad ah loona wada dhan yahay dhanka kale war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland ayaa waxaa looga hadlay doorashooyinka Soomaaliya
kadib heshiis ay madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada ku gaareen magaalada muqdisho. qoraalka ayaa waxaa lagu sheegay in somalilan ay tahay dowlad madax bannaan isla markaana aysan wax shaqo ah ku lahayn nidaamka doorashooyinka soomaaliya. sidoo kale somalilan ayaa qoraalkani ku wargelisay qaramada midoobay, midowda afrika, midowda yurub iyo guud ahaan beesha caalamka. wasaaradda arrimaha dibadda somalilan ayaa sidoo kale dowladda federaalka oo ay ku tilmaantay mid taag daran ugu digtay sheegasho ay sheegtay inay wado. waxa aanu nahay dowlad madax bannaan oo aan wax shaqo ah ku lahayn doorashooyinka dalka soomaaliya ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka. ugu dambeyntii somalilan ayaa ugu baaqday shacabkeeda in ay muujiyaan feejignaan dheeri ah oo ku aadan hagardaamo ay sheegtay inay wado dowladda soomaaliya. si kastaba ha ahaatee dowladda soomaaliya ayaa u diyaar garoobaysa doorashooyinka 2020-2021 waxaana heshiiska la gaaray ku jira xubnaha somalilan ku matalaya dowladda federaalka kuwaasoo lagu dooranayo magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya. dhanka kale warar lagu kalsoonaan karo oo aan ka helnay ilawareed kala duwan ayaa sheegaya in madaxtooyada soomaaliya ay qorsheynaysa inay dib u bilowday xiriirka dowladda imaaraadka carabta. malafka dib u soo celinta xiriirka imaaraadka carabta ayaa waxaa loo dhiibay ergeyga gaarka ah ee madaxweyne farmaajo u qaabilsan arrimaha badda cas iyo weliba gacanka cadan maxamed cismaan balel. wararka ayaa sheegaya in maxamed cismaan balel uu ku wajahan yahay dalka imaaraadka carabta si uu u bilaawada hadallada isagoo fariin ka sida madaxweyne farmaajo. lama shaacinin fariinta madaxweyne farmaajo u diraya imaaraadka carabta waxaase jira xiriirka labada dal inuu aad u xumaaday tan iyo markii dowladda madaxweyne farmaajo ay la wareegtay lacag dhan 9.6 milyan oo dollarka maraykanka muddo laga joogo 30 bilood. sidoo kalena dowladda soomaaliya ayaa ku gacan saartay heshiiskii dekada berbera. ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo ay xulufo dhow yihiin madaxweyne farmaajo ayaa muddooyinkanba ka shaqaynayay sidii loo soo celin lahaa xiriirka madaxweyne farmaajo ee imaaraadka carabta iyadoo shuruudaha imaaraadku dalbaday in la fuliyo si loo soo celiyo xiriirka labada dal ay ka mid yihiin in dowladda soomaaliya ay bixiso cudurdaar rasmi ah ayna soo celiso lacagaha aqbasho heshiiska dekadaha berbere iyo boosaaso. dhanka kale madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe oo weli ku sugan magaalada muqdisho ayaa ka hadlay arrimaha heshiiska doorashooyinka ay ka gaareen dowladda iyo weliba dowlad goboleedyada. axmed madoobe ayaa sheegay in heshiiskaasi uusan xeer ahayn wuxuuna tilmaamay inuusan u baahnayn in la ansixiyo amaba la horgeeyo baarlamaanka soomaaliya. madaxweynaha jubbaland ayaa sidoo kale xusay in go'aanada ka soo baxay shirkii muqdisho keliya lagu gaaray xalka ugu dambeeya ee lagu geli karo doorashada 2020-2021. waxaad ogaataan in heshiiskaasi uusan xeer ahayn balse uu yahay xalka ugu dambeeya ee aan isla aragnay oo doorashada lagu geli karo una baahnayn in la ansixiyo ayuu yidhi axmed madoobe. madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa hore u sheegay in heshiiska doorashooyinka la horgeyn doono golaha shacabka si ay ugu doodaan una meelmariyaan heshiiskaasi oo saldhig u ah doorashada soo socota. si kastaba ha ahaatee madaxda dowladda dhexe iyo kuwa dowlad goboleedyada iyo weliba gobolka banaadir ayaa dhawaan isku raacay 15 qodob oo ku aadan doorashooyinka dalka. dhanka kale beesha caalamka ayaan weli ka hadlay magacaawistii ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble kaas oo ay u dhiman tahay in xildhibaanada golaha shacabka ay u codeeyaan. waa markii ugu horeysay oo ay beesha caalamka si degdeg ah u soo dhaweynin magacaawista ra'iisul wasaare cusub taas ayaana abuurtay shaki badan in ay walwal ka qabaan in ra'iisul wasaaraha cusub uu yahay qof aan u qalmin mas'uuliyadda loo igmaday. dhanka kale aamusnaanta beesha caalamka ayaa sidoo kale waxa ay shaki badan gelisay xubnaha baarlamaanka oo walwal badan ka qaba dhammaadka xilli waqtiyeedkooda waxaana macquul ah in taageerida ra'iisul wasaaraha iyo heshiiska muqdisho ee beesha caalamka uu ku xirnaan doono tallaabada ay qaadaan baarlamaanka federaalka soomaaliya. aamusnaanta beesha caalamka ayaa ku soo aaday iyadoo ay beesha caalamka ay ra'yi ahaan taageersaneed doorasho qof iyo cod ah inkastoo ay ogeed inaysan macquul ahayn. sidaasi darteedna waxaa suurtagal ah in xitaa markii ay hadashay ay taageertay heshiiska la gaaray balse aysan toos uga hadal nidaamka doorashada iyo in ra'iisul wasaaraha cusub uu yahay qof awoodi kara in uu taabageliyo heshiiskaasi. intaas waxay ahaayeen wararkii ugu dambeeyay ee ilaa iyo haatan ina soo gaaray.